الرحيم أنا جوا مريم حاج إسماعيل علمي أهنا قدوميها قرب كهوين وداني إسلادن ما أنت وحن شغلة سنينها كسوتشي إنه باقاسو حنبارسن أبارها يدباتوي ككذا أي ودن كيني وحويا وإن لقرمدو ولو قرمدو dadkeena tabaalaysan dhibaataysan masiibooyinkii adduunka laga ducaysan jiray ay maanta haleeshay waxa kale oo aad moodaa inay baaq iyo muuq leedahay in dawladda Soomaaliland ay ku hindisayso ama maaragtay ay doonayso inay samayso election maanta waxaan u maleynayaa in la xukumi doono haddii maanta election la qaado xabaalaha madaxweynayaal loo noqon doono waxa maanta yaala in aynu gurmano ma yaalo inaynu meel farfadhiisano wax cuno waxaan dhihi lahaa Soomaaliland maanta maalin la isu dhuuman karo ma aha maalin beel la isu sheegi karana ma aha maanta xaaladdu way caddahay islaamnimada iyo muslimnimada iyo Soomaalinimada iyo laandarka aynu nahay maanta waxaynu u baahanahay inaynu isu gurmano uma baahnin inaynu kaar bixino kaarku isaga iman doona marka aad gurmadka fadiso xisbiga gurmadka fadinaya marka hadii aan eego maanta wadani wuxuu u diyaar u yahay oo uu maanta u halgamaya una ordaya in la joojiyo waxyaabaha kale ee keenaya ama se dadka tabaalaynaya ama se caloolxumada iyo murugada keenaya in laga dhex saaro dadka oo laga qaado oo loo gurmado marka wadani maanta waxa uu sheegayaa in la gurmado marka hal la gurmado hana la joojiyo tiqsiga iyo istabamarka iyo baabuurta iyo electionka nin ladan baa ku foodaya dhulka la fadhiyaayo lama kici kare waxaan dhihi lahaa aan dib isu noqono isuna naxno ilaahayna wuxuu yidhi aan idin naxariista isu naxa waanta waa maalinteedii waana maalintii la isbaran lahaa bari iyo Soomaaliland meeshii abaaru ka dhaceen ee maanta la beerka dhulka lagu hayo indhaha wuu u furan yahay kii abaarta ka soo dooga halku kaarka galin doona wuu og yahay kii wax gashaday buu ugu ridayaa marka hala shaqo tago hana laynaga joojiyo waxyeelada intaasaan dhihi lahaa dhaweynayaa mowqifkii xusbiga ee ahaa doorashada in laga horeysiyo dadka tabaalaysan ee dhibaataysan ee abaaruhu soo wajaheen gurmadkooda loona gurmado maanta loona gurmado oo gurmad degdega loo sameeyo iyada oo aan lagu mashquulin maanta doorasho Soomaaliland meel ma kala qabanayso doorashada dib waa loo dhigan karaa